بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 262 عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وهذا لفظه. إخوة الإسلام والإيمان، maantay taariikhda islaamka ay tahay 27kii bishii sagaalaad ramadaan sanadka 1441, isla markaana waafaqsan 20kii bishii shanaad sanadka 2020. waxaanu ku jiray mawduuceennii ku saabsanaa ramadaanka iyo qaybihiisa kala duwanaa, qaybtii u dambeysay oo ciidda iyo wixii ku shaqo lahaa. shalay waxaanu qaadanay ciidda iyo qaabka loo tukanhayo, khaasatan haddii ay suurtageli weydo cudurdaar qofka ku yimaado in masaajida iyo banaanka lagu tukado iyo jamaaco lagu tukado suurtageli weydo, qaabka loo tukanhayo weliba duruufaha maanta na haysa xanuunkan dhacaya in guriga lagu tukanhayo laakiin aynu khudba lahayn. waxaan qaadanaynaa maanta xadiid kale oo aada u qiimo badan oo ku saabsan khasaa'ista ay leedahay bishan ramadaan iyo bisha kale maaragtay dulxije la yihahdo. aduu labada ciidood bilahooda khasaa'isuu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. abubakrata nufaac binu xaaris radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa wuxuu ka warinaya can nabiyi calayhi salaatu wasalaam qaala inuu nabigu yihi: shahraa ciidin, ciidda labadeeda bilood, laa yanqusaani ma nusqaamayaan, ramadaanu iyo wadulxija. bisha ramadaan iyo dulxija ma nusqaamaan. xadiidkan ikhwatii fi llaahi aqlabka umahaastaa way soo saareen, bukhaari, muslim, abu daawuud iyo keyrkoodba way soo saareen. laakiin lafdigan aanu hadda dooranay eenu akhriyayno abu daawuud baa iska leh. waa lafdi yaroo kooban: shahraa ciidin laa yanqusaani ramadaanu wadulxija. ama bukhaari lafdigiisu wuxuu ahaa shahraani laa yanqusaani shahraa ciidin ramadaanu wadulxija. isku saxaabi baana warinaya. xadiidkan macnihiisa waxaa weeye culimmadu aad bay maaragtay u taxliiliyeen oo macno saxaya mid aan saxaynba way maarata fasirkiisa way ku raadiyeen. wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam: laba bilood, shahraa ciidin, ciidda labadeeda bilood, laa yanqusaani ma nusqaamaan. ciidda labada bilood ee ciiddu ku jirto laa yanqusaani ma nusqaamaan. waa labadee bilood? ramadaanu iyo wadulxija. bimacnaa humaa ayagu labadaas ramadaanu weeye iyo wadulxija. idan labadaa bilood ee ramadaan iyo dulxija oo labaduba ay ciid maaragtay ay la socoto ma nusqaamaan buu nabigu yihi. ma nusqaamaan macnaheedu maxay noqonaysaa? qolo waxay dhaheen xadiidka sidiisaa lagu xumbaarhayaa. ma nusqaamaan macnaheedu weligood soddon bay ku dhammaanhayaan. daahirkiisaan ku soconaynaa bay dhaheen. ma nusqaamaan ramadaanka iyo dulxija weligood 30 bay ku dhammaan, 29 kuma dhammaanayaan. qowlka waa qowl daciifa leeyihi, waa la radiyey sida xaafid ibn xajar iyo keyrkii bay sheegeen iyo imaam nawowi. qowlka labaad waxaa leeyihi shahraa ciidin laa yanqusaani, macnaheedu waxaa weeye fii sana waaxida. bisha ramadaan iyo dulxija hal sana gudahood 29 labadooda kuma wada dhammaadaan. hadday ramadaan ay noqoto 29, sanadkan ay 29 noqoto, dulxija 29 ma noqonayso, 30 bay noqonaysaa. hal sana gudahood, ilana ramadaanna waa bishii sagaalaad xagga bilaha islaamka, dulxijana waa bishii 12aad oo ugu dambeysay sanadka. idan sanad gudihii labadooduba 29 kuma dhammaadaan. kaa waa macno salafku ka sugnaado ku fasireen, waa macno suurtagalana wey. macnaha kasii fiican waxaa weeye oy culimmadu u badan yihiin sida imaam nawowi iyo keyrkii ay rajaxayaan, shahraa ciidin laa yanqusaani waxaa loo jeedaa labada bilood ee ciidda oo ramadaan iyo dulxija laa yanqusaani min xaysu alajr, ajir ahaan ma nusqaamhayaan walow haba ku dhammaadeen 29. ajirkoodu 30 buuxa ajirkii oo kale leeyihiin. waana macnaha ugu raajaxsan oy culimmadu ku fasireen, macnaha ugu raajaxsan wey. bimacnaa shahraa ciidin, ciidda labadeeda bilood laa yanqusaani ma nusqaamaan.
min alajri wathawaab walow kaana maaragtay cadad ahaan ha nusqaameen oo 29 ha noqdeen laakiin ajirkoodu waa ajir bil kaamila wey saa darteed bay culimadu waxay leeyihin xadiidka waxaa laga faa'idaysan bimacnaa faa'iidada ku jirta waxay tahay ataswiyatu fi thawaabi bayna ashahri alkaamil wa bayna ashahri naaqis hadday midooda ay ku dhammaato 29 midna ay ku dhammaato 30 ajirka labadooduba waxaa dadka loo qorayaa 30 buuxo bil 30keeda ajirkeedoo kale loo qorayaa idan waa macnaha ugu raajaxsan waa khusuusiyada iyo fadliga uu ilaahay subxaanahu watacaala labadaa bilood uu dhigay ramadaanka iyo dulxija labadaa bilood waa labada bilooda mid kastaba bila maaragtay ciidda ay la socoto dulxijana maalinkeeda 10aad baa ciiddu ay tahay ramadaanna markuu dhammaado ayay ciiddu noqonaysaa idan labadaa bilood ajirkoodu ma nusqaamo wey ajirkoodu ma nusqaamo hadday 29 ay ku dhammaadaan labadooduba iyo hadday maaragtay 30 ku dhammaadaan iyo hadday midna 30 ku dhammaato midna 29 ku dhammaato dhammaantood waxaa loo wada qorayaa bil kaamila ajirkeed baa dadka loo qorayaa idan ramadaankii waa 29 soontay lagu dhihi maayo ama la dhihi maayo 29 baa ajirkooda loo qori bil 30keed ramadaan fuul oo 30 maalmood ajirkaad heli lahayd baa lagu qori baa ajirka maaragtay lagu qoraya culimadana qaar waxay dhaheen halkaa waxaa yani la awdahayaa ama la saxahayaa malaha hadduu qofku u maleeyo bisha ramadaan 29 haddaa soonti ajirkaada mukaa nusqaama oo 30 adoo sooma ay ka fadli badnaan lahayd malaha noocaas oo kale la xidhaya la saxaya waa isku mid 29 hadduu ramadaan ku dhammaado iyo hadduu 30 ku dhammaado bil 30 oo buuxda ajirkeed baa lagu siinaya dulxija hadday 29 ku dhammaato iyo haddii 30 ku dhammaato bil buuxda maaragtay ajirkeeda ayaad qaadanaysaa idan sidaasaa ilaahay maaragtay sidaasaa culimadu ay ku macneeyeen waana sida raajixa halka waxaanu ka qaadanay khusuusiyaadka uu ilaahay subxaanahu watacaala uu yeelay labadaa bilood ee fadliga badan oo bisha ramadaan aan ku jiro iyo bisha dulxija noo iman doonta insha allahu tacaala labadaa bilood ee labaduba ciidda ay la ciidahu ay la socdaan ciidaha muslimiinta khusuusiyaadka iyo khayrka ilaahay subxaanahu watacaala oo khaas ugu yeelay bilaha kaloo dhan lamid moo shawaal baan lamid ahayn dulqicdaan lamid ahayn safar baan lamid ahayn rabiicu thani iyo rabiicu awal mawlid maalmo doone iyo wixii la dhihi jiray iyo maaragtay muxaram shacbaan rajab lamid maaho wixii 29 may noqon tii 30 ahaydna 30 ama ramadaan iyo dulxija midii naaqis noqoto 30 ku dhammaanin ajirka iyo thawaabka bil buuxda ayaa qofka la siinayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu maaragtay bisha ramadaan aan ku jiro fadaaisheeda iyo khayrkeeda inuu ilaahay na waafajiyo laylatulqadrka kuwa ilaahay waafajiyana ilaahay uu naga dhigo ilaahay subxaanahu watacaala uu noo dambi dhaaf idan ikhwatii fillah halka waxaanu kasoo qaadanay maaragtay labadaa bilood khusuusiyaadka ay leeyihiin iyo khayraadka ay leeyihiin iyo naqsigooda iyo maaragtay kaamilnimadkoodu inuu isku mid yahay xagga ajirka hal mar baa xadiidka ku celinaya alxadiiثu 262 can abi bakrata radi allahu canhu can الnabiy salى allahu alayh wasalam qaal shahraa ciidin laa yanqusaani ramadaanu wadulxijata rawahu الbukhaariy wamuslim وأبو داود وهذا لفظه والحديث صحيح هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.